waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay oo farxad aan la goyn karin oo aad iyo aad u qiimo badan aan maaragtay ugu faraxsanahay waxa weeye arrinta maanta halka loo joogo waa nabadda galmudug nabadda habargidir kaliya mali midnimada habargidir waxay horseed u tahay midnimada galmudug iyo dhismaha galmudug iyo sharafta galmudug iyo horukaca galmudug ayay maaragtay u tahay hordhac marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shirkan dadkii ka soo shaqeeyey oo isku soo dubariday oo ilaa meel dheer ka keenay oo aan ogahay 3-4 bilood ka hor in guddiyaal saarbey ah ama sahana oo socda ay noogu yimaadeen gaalkacyo noogu yimaadeen dhuusamareeb markaa ka bacdina go'aanka lagu gaaray in la keeno hobyo waa magaalo qadiimi ah waa magaalooyinkii gaalkacyo iyo dhuusamareeb iyo kulligood magaaladii dhashay weeye in taariikhdeedii la soo celiyo oo shirarka lagu qabto waxaan ogahay mid kale oo 1925 ahaa oo hobyo inta lagu qabtay haddana ceelhuur lagu gunaaday waa 94 sano ka hor wey buuggii laga qoray kitaabadii laga qoray heshiiskii waa yaala aad iyo aad baan ugu xumay maanta ma wado laakiin waan soo bandhigi doonaa waa keeni doonaa waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinayaa reer hobyo hadday tahay guddoomiyaha maaragtay degmada haddii ay tahay shacabka reer hobyo iyo nawaaxiga u dhow oo dhan oo u soo dhoweeyey maaragtay shirka kan si qurux badan oo aan weligeedii allaheed la arag waxaan ognahay dadkii guryaha deganaa magaalada hobyo in ugu yaraan 50-60 guri laga guuray oo loo baneeyey martida waxaan ognahay in maalintii intaasoo xoolaa laga keeno miyiga waxaan ognahay dadka reer hobyo ninbaa iigu yimid muqdisho maalin dhaweyd wuxuu yidhi quraacdii baa inta i dhaaftay baan waxaan tagay buu yidhi makhaayad beer baan ka cunay buu yidhi markaan beerkii cunay baan gabar joogtay waxaan ku idhi buu yidhi adan lacagta waa imisa waxay ii weydiisay buu yidhi soo ka mid ma ahid ergada shirka waa gabar magaalada dhexdeeda makhaayad ku haysata ka mid baan ahay buu yidhi waxba lagaama rabay hore iska tag bay tiri waxyaalaha mucjisada ah oo la yaab ka leh oo magaaladan lagala kulmay ka mid tahay kuwa kaloo badanina waa soo socdaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin intii soo abaabushay intii hirgelisay guddiga qabanqaabada kuwii hore oo fakeray saraakiishii qoraallada soo samaysay iyo inta hadda waddaba iyo ergooyinka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa kulligood siday u dhanyihiin maanta aniga waa idin soo booqday waxna idinma wadin shirka gabagabadiisana waa imaanaya haddii alla idmo waxaan keliya oo rabay inaan sheego oo ku dhawaaqa mar kale galmudug 2 bilood ka hor waa tii aan dhuusamareeb markaan ka soo tagnay dowladda federaalka waanu la hadalay mar haddii aan arkay in ay dhuusamareeb iyo cadaado iyo carradii ay xoogaa tashwiish galay ayaan waxaan ku soo dhoweeyey dowladda federaalka ay shaqaha qabato bal waxay qaban kartaa qabato hadafkaygu wuxuu ahaa inay xaraalay howsho isu geeyaan dhuusamareeb iyo cadaado isu geeyaan ahlu sunnadii hore iyo galmudugta cusub galmudugtii isku soo dhoweeyaan wixii jira ka shaqeeyaan oo ay hawsha maadaama annaga inta yabyabtii iyo dhibaatadii nagu badatay
yaa bal aanu kaadina markaan bal ku eegno dowladda federaalka ee hawshii markii ay qabatay run ahaantii saluug badan baa jira maanta oo ugu dambeeyay warkii shalay ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha galmudug ma dhiman madaxdiisii wasiiradiisii xildhibaanadiisii iyo madaxweynaheedii waa joogaan cidlo ma aha waxaan rajaynaynaa haddii waxa dhisana inaan ka noqono udubdhexaad inaan ka noqono ayaan rabnaa inaan wax ka dhisno inaan wax quman dhisnaan rabnaa waxa qumanoo aan dhisaynana ilaahay maaragtaa nala garab galo waa nala garabgeli doonaa waxaa kale oo aad iyo aad muhiim ah soomaaliya 30 sano la soo dhaafay waxaa dhici jirtay sanadkii 40 milyan oo dollar baa waxay ku baxdaa dib u heshiisiin wax la yiraahdo dib u heshiisiintaasi waa seminar iyo workshop iyo NGO wada dib u heshiisiinta maanta waa ka bedelaynaa magacii waxaan ka dhigaynaa dhab u heshiisiin inaysan dhalanteed noqonee dhab noqoto oo wax dhaba lagu heshiiyo maanta ito gallisoor iyo meesha la yidhaahdo dhabbada iskuma socdaan haddaa raalliga ahaada jaamaxaage iyo xasan yarana waxay wada joogaan baa laga yaabaa dhuusamareeb ayadoo midna hoolka dhinacaa ka fadhiya midna dhinacaa ka fadhiya waa la heshiiyey haddii la yidhaahdo labadii magaalo aysan isku socon sow dhibaato maaha xasan yara wuxuu tabanayaa gurigii gallisoor inuu ku laabto jaamana wuxuu rabaa in carrada la wada daaqo labaduba waa rabaan heshiisa in laysu keeno oo wax loo kala qaado oo kii gurila gurigiisa loo cesho oo kii hantila hantidiisa loo celiyo oo kii dhiig ka maqan yahay loo mago miyaysan ahayn dhab oo heshiisiinta horta waa taa ee ma aha workshop iyo NGO maaha laga bilaabo maanta galmudug waxaan rabnaa inay samayso dhab heshiisiin waxaan ugu baaqayaa beelaha galmudug oo hadda halkaan ka maqan inay nagala soo qayb galaan dhab heshiisiinta ka furan hodhi inay intii xurgufi u dhaxayso nagala qayb galaan ama kala qayb galaan beelaha halka fadhiya in ay isku soo dhoweeyaan oo ay isfahamsiiyaan oo wax dhaxalgal ah oo nabad waarta dhala oo dawlad fiican dhala oo wax wanaagsana inay halka soo baxaan ma rabnaa ilaahay hadduu idmo waxaan ku soo dhowaynayaa beelaha ay ugu horrayso beesha sade oo aad iyo aad xurgufo badani ka jiraan mudug iyo galguduud labadaba beelaha fiqi maxamed oo xeraale iyo kala jooga iyo huurshe oo in laysku dhoweeyo laysu keeno u baahan meesha la yidhaahdo dhabbad iyo balanballe dhabbad maaha ii sheeg guriceel iyo balanballe oo aan ognahay inaysan isu socon in laysu socodsiiyaan rabaa waxaan rabnaa in dawaysiintaani gaarto ilaa hiiraan midda ka socota dhibaatada ka jirta maaragtay waxba la qarin maayo maanta habareji iyo cali madaxweyne in la dhex galo oo aan taa u gudubnaan rabnaa dhabo heshiisiinta meeshaan ka furantay maanta waxaan ilaahay ka rajaynaynaa haddaan u istaagnana waa qaban karnaa anigu waxaan joogay shirkii carta shirarka aan hay-aduhu maalgelin wax natiija ka soo baxda hay-adaha waxoodu waa sul shirkii carta anu waa joogay reer jabuuti waxay yidhaahdeen arigaya iyo geelaya yar baanu qalanaynaa uma baahnin mucaawano shirkii carta ood ogeydeen cid kala qayb gashay dowladda yaree jabuuti ma jirin dowladda maanta soomaaliya ku naaloonaysana tii dhashay weeye taana waxaa sababay in ay isku kalsooni iyo maaragtay ay naftooda ay aad ciriiri u geliyeen inay shirkaa hirgeliyaan aan noqonno
kuwii maanta intii ka soo hartay carta ku heshiisiyaan mar kale anoo sii balballaarinaya dib u heshiisiinta maanta maxaan ku ballannay dib u heshiisiinta halka ka socota inay noqoto cartadii labaad arintaa ku heshiino inaan ariga iyo geelayga qalanno kalluunkayga la soo baxno isku biilo oo aanan marna u hangaltaagin maaragtay NGO iyo shaqadood iyo beel caalam inaynan u hangaltaagin aan isku dayno wax wanaagsan ayaa soo baxaya wax wanaagsan ayay dhali doonaan insha allahu tacaala waxaan hadalkayga rabaa inaan ku soo gabagabeeyo galmudug way joogtaa weli ma tegin cid kasta oo hadda ka shaqaynaysana waxaan ka rajaynaynaa oo u soo jeedinaynaa in ay dowrkayaga weyn oo ugu horeeya inaan yeelanno ayaanu rabnaa inaan ku soo laabannaan rabnaa saaxada kama annaan bixina waa nool lahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin reer hobyo iyo maaragtay ergada iyo madaxda iyo guddiga qabanqaabada iyo salaadiinta iyo jenaraal maanta ninkii noogu daaweynaa janankii noogu daaweynaa waa fadhiyaa jenaraale noogu soo duceeya maanta inaan dib u heshiisiin samaynaan rabnaa waxaan samaynaynaa dib u heshiisiin ma aha waa dhab u heshiisiin waa la bedelay wixii la oran jiray dib u heshiisiin dhab u heshiisiin baan rabnaa maanta aad iyo aad baan u mahadsantihiin soo dhowaada waxaan isugu imaanaynaa dekeddaa kuu soo hartay dekedda dhagaxdhigeedu insha allah been ma noqonayo wax kastoona loo sheego deked baa ku tashanaysaan aniga kolley haddaanan dhiman haddaan joogo ka taga madaxtinimada iyo haddaanan joogin labadaba dekeddaas aniga haligu faatixiyey inay dhisanto inaan qadar la'aan inaan dhisnaan rabnaa sacuudi la'aanta inaan dhisannaan rabnaa muruqayagaan ku dhisanaynaa marka ugu horraysana 2 bilood 3 bilood soo socotana ifafaalaha waad arki doontaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhowaada kalluunka ha la cuno hilibka ha la iska yareeyo qolada halkaan inta warshadda ka dhistay ka tagtayna soo laabta dhexeya aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhowaada insha allah bisha 2, 3, 4 waa soo noqonayaa shirka xiriirdiisana waa ka soo qayb galayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhowaada